waxaa maanta degan guul ahaan xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool gaar ahaan soodinta u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ee jiida deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool halkaas oo maalmihii u dambeysay ay isku warfadhiyeen laba ciidan oo ka kala tirsan Somaliland iyo Puntland odayaashii waxgaradka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay xukuumadda Somaliland sidoo kalena waxay fariin u direen maamul goboleedka Puntland iyagoo sheegay inay taageersan yihiin imaanshaha Somaliland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool tan iyo intii maamul goboleedka Puntland uu ku sugnaa deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaanu ka qaban wax qabada haba yaraatee halka ay ka soo xaroon jirtay kastamka Tukaraq $40,000 saddexdii cishaba sida ay sheegeen odayaashu waxayna codsadeen in wax qabad buuxa looga hirgeliyo deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool meesha waa la yiraahdaa Tukaraq waa magaalo dhulbahante ka tirsan gobolka Laascaanood gobolka Sool ee Laascaanood magaalo madaxdiisa Laascaanood ilaa 2007 markii Laascaanood jamhuuriyadda Somaliland la wareegtay waxa haystay oo ka talin jiray maamulka la yiraahdo Puntland hadduu ka talin jiray dhulbahante intii Somaliland raacday mooye inta kale waxay ahayd magaalo madax ama dulmi ha qabto ama yay qabin waa la yiri berigii uu joogay Ingiriisku dhulka ee Soomaalida gumaysan jiray waxa uu soo saaray Ingiriiski wax la yiraahdo local marka waa taday qabiil la iska dhigay Faarax iyo Maxamuud baa localkii qaatay xasan ugaas baa nin ka qaatay baa la yiri maantii dambe wuxuu tagay Boocame waa la yiri hal la qabto ninkan oo gaaladii buu raacay waa la shaabadaynayaa ninba marka wuxuu yiri baa la yiri war Faarax iyo Maxamuud ma qaateen localkii qaatay baa la yiri waradi Faarax iyo Maxamuud qaateen walaan xasan ugaas cadeysmo u ahaanayna sii daayay buu yiri ninka horda iskaga taga waxay la tahay saaka Tukaraqida meeshii tolkeed marabay martay meel kale uma go'ayso meeshii tolkeed maray way martay horta meel kale uma go'ayso maamulada qaylinaya ee hadlaya magaaladan waa magaalo dhulbahante waa degmo gobolka Sool kamida waa magaalo dhulbahante leeyahay waxaan mar kale leenahay nimownaha ku haraadin haddii cid ku dagaalamaysan anaga ku dagaalamayna haddaan lagu dagaalamayna waa magaalo dhulbahanta taladeedu u taala inta waxaan leeyahay maamulada hareeraha ka qaylqaylinaya daaroodka kale waxaan leeyahay dhulka ka qaylqaylinaya Laascaanood Xudun Ceerigaabo Taleex Saaxdheer intaasba jamhuuriyadda Somaliland baa ka talinaysay inta Tukaraq qaylinaysaan maad kuwa ka hadashaan Tukaraq intaad ka qaylinaysaan maad kuwa ka hadashaan waxaan leenahay haddaba dhulka yaga annaga u tashanayna meeshii aanu danta moodno baanu raacayna Laascaanood gobolkii baa la yiri waa la soo raray ku meel gaar baa halkan Puntland ugu samaysay saddexdii maalmood $40,000 baa laga qaadaa maaliyadda dawladda hooseedu ma xisaabsano garan mayno de rag baa 43 raad dawladii leedahay Tukaraq ma yaal laba qol oo lacagta la dhigan jiray baa horta dhisan annaku Puntland lama shaqayn jirin oo kama aanu shaqayn jirin Somaliland lama shaqayn jirin laakiin dalku ciida la yahay horta Somaliland inta Somaliland degta waysdal wasku sharci wasku xeer ma garata waxaynu nahay dad wada dhashay oo isu yimid oo Soomaali waliba nugaal u dhashay iyo hareeraheeda xabaanagu taas ku sitiigan maayo raalina weydin karnay waan idin soo dhaweynay wax xumaanihiina uma kala jirto annana xumaan idin ma hayno xoogaa dan halka ka soo baxo hadii anigu ilaa maantaan garaadsaday waxaan arki jiray marka maamul isbedelo ama madax timaado annaga waxa qabanayna kuwii hore wax ma ahayn idinkaawo annaga wacan waanu arki jirnay haddana waxa qaar jiray qaar waxba ka dhicin waanu arki jiray iyadan aan waxba ka soo dhicin
haddii aad tihiin sida aad noogu warramaysaan kuwa wax bixinaya kuwa wax qabanaya kuwa wax qoraya kuwa na soo dhaweynaya kuwa dadka iyo maatada korinaya wax u qabanaya haddaad tihiin waa idinku soo dhaweynay raallina waa idinkana مولد علي ستار تي في لا سعنق